أفتنا ويهور مراد همنا هذين يودرار هذا اللذان لسنا أفتنا ويهور مراد همنا ومنى عمر حسن يعني وعبد الله موسى حسن كالقعل طبعا وحان رجينا إنه هوشن ما أنت هل كان يسوقون نبي أيفسي فرحة أو دعوة وجهرين لنا عشد وذلذنا waxaan doonaynaa ugu horeyn inaan u yeedhno gudoomiyaha degmada martida ay u tahay farxadan iyo munaasibadan iyo quruxdan aad arkaysaan gudoomiye deeqo kunkaroon baan ugu bixiyay waa hagaag inaan u wacdo deeqo intaysan noo soo kicin ugu horeyn waxa isaguna nagu soo biiray gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolkan banaadir waliba mas'uuliyiinta xafladani waxa ay hordhac u tahay xaflado fara badan waxaan ku raacinayaa waxa kale oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya kooxda fanaaniinta gobolada qaranka ee Waaberi iyo waliba fanaanada weyn ilaahay baa weyne hiba maxamed udoon hiba nuura oo qayb ka qaadan doonta waa maadsantahay waxaana barnaamijkani hordhac u yahay barnaamijyo dhammaanba degmooyinka gobolka banaadir si taxana ah uga socon doona oo lagu soo bandhigayo nabadgelyada gobolka dalka sidoo kalena gobolada dalka ayuu wada gaari doonaa min degmo gobol ilaa iyo tuulo waxa waliba xiisaheeda leh qaybaha ciyaartoyda ee iyaguna ciyaaraya xagga welisanqada iyo waaladu dhammaantoodba waa kooxo Soomaaliyeed oo gobolka banaadir maanta tusaya dadweynaha adduunyada dacaladeeda iyo waliba kuwa muqdisho jooga nafsadooda cid caloosha ka bugto dambe si loo waayo waa maadsan sidoo kale waxa nagala qayb qaadanaya ardayda aad arkaysaan iskuulka dugsiga dhexe iyo waliba ciyaalka oo isboortiga wada arkaysa dhalinyarada isboortiga iyaduna inagama maqnaa looma kala harin iftiinka iyo wanaaga iyo nabadda magaalada muqdisho waxaana laga bilaabay dabaaldega munaasabadahaas oo noqon doona isdaba joog degmada warta nabadda hawarto ha jirto hana joogto waa bandhig horta waxa degmada warta nabadda looga bilaabay magaceedii baa noqday warta nabadda marka hooseedka nabadda ayay noqonaysaa nabad Soomaaliyay nabad ayaanu idin leenahay maama deeqo kun karoon xariga nooga jar marka ugu horeysa munaasabadu si ay u sii amba qaadanto dadkan baa la rabaa inaad soo dhaweyso qalbigaaga weyn intaas oo qof qaaday soo dhawaada bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka warfaafinta gudoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha bulshada gudoomiyaha degmada Daynile gudoomiye ku-xigeenka degmada Howlwadaag konsolka degmada Warta Nabadda fanaaniinta Waaberi ardayda isboortiga haweenka quruxda badan iyo barbaarta gaashaaman iyo fanaanadeena qaaliga ah Hibanuura dhammaantood waa salaamayeen salaan kadib barnaamijka anaga nasiib u yeelanay maadaama la dhaho barnaamijka nabadda anagana la dhaho warta nabadda waxaan rajaynaynaa si qurux badan inuu u dhaco wasaaradda warfaafintana waa uga mahadcelinaynaa waxqabadkeeda intii la magacaabay wasiirka banaanka u yaala laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah 16 degmo in laga sameeyo shacabka degan gobolka banaadirna ayaga iska leh barnaamijkan in ay soo dhaweeyaan la shaqeeyaan wasaaradda garab istaagaan aan rajaynaa barnaamijkina waa noo furan yahay aad iyo aad bay u mahadsantahay maama deeqo sida ay barnaamijka noogu furmay halkan waxa diyaar ku ah kooxda fanka lor dancing ee hobalada Waaberi waad arkaysaa dabkii buu u dhaarsan yahay kuntii buu u dhaarsan naga saar garoonka miya iyagaan u deynay waxaan u yeeraynaa agaasimaha warbaahinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala waxaan rabnaa kaalinta warfaafinta ay ku leedahay nabadda muqdisho sidee nabad loogu soo dabaali karaa isla markaana wasaaradda warfaafintu waxay qayb ka tahay soo qaban qaabeyaasha barnaamijkan bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantihiin kalgacal iyo muno waxaan rabaa inaan salaamo wasiirka warfaafinta mas'uuliyiinta gobolka banaadir
fanaaniinta qaranka oo ay ka mid tahay Hiba Nuura oo hadda inagu soo biirtay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa dabcan la soo dhaweynayaa fanaanada weyn ee Hiba Nuura haddii aan u galo qaybta aan ku leeyahay barnaamijkan runtii waxa uu ka mid yahay barnaamijyo ballaaran oo wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo maamulada gobollada dalku ay isaga kaashan doonaan sidii loo muujin lahaa nabadgelyada ka jirta dalka waxaana barnaamijkan uu yahay barnaamij la rabo in lagu soo bandhigo wejiga rasmiga ah ee dalka Soomaaliya xilligan uu ku sugan yahay gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyo meelaha dalka ee gacanta ay ku hayso dawladdu xilli dalku uu diyaar garoobayo hawlgal ballaaran oo dib loogu nabadeynayo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasaaradihii ay ka mid ahayd wasaaradda amniga iyo hay'adda la yiraahdo CCA iyo degmada warta nabadda oo barnaamijkan taabagelintiisa qayb weyn naga qaatay waxaan sidoo kale runtii aad ugu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta Mustafa Dhuxulow oo ahaa runtii shakhsiga iska lahaa fikirka barnaamijka noocan oo kale taa in la qabto waxaan rajaynaynaa haddii Alla uu qadaro in toddobaadyada inagu soo socda 17 degmo ee gobolka Banaadir lagu dhigi doono barnaamijyo noocan oo kale taa oo lagu muujin doono sida dadka Soomaaliyeed ay u awoodaan inay banaanka u yimaadaan una sheegaan xaqiiqadaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin waxaana runtii tani ay si cad u beenin doontaa wararka been abuurka iyo propagandada ah ee ka hadlaya in dadka Soomaaliyeed ay baqayaan isla markaana aanay awoodin inay banaanka u soo baxaan waxaan rajaynaynaa maanta barnaamijkan marka uu dhamaado in dad badan oo Soomaaliyeed oo xilligan wax aaminsan marka uu barnaamijkan dhamaado in wax ka duwan wax hadda ay aaminsan yihiin ay aamini doonaan waxyaabaha ugu muhiimsan dabcan waxay noo sheegi doonaa wasiirada marka qaybtooda la gaaro aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay agaasimaha warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan waxaa tiri mar dhaweed falkaron dransigii waa beri hadda waxaan arkayaa Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo isaguna kamida fanaaniinta waa beri Muraayo Raaxo dabcan Mukhtaar waakhiro Cabdiwali Ilka Case waa beri alla ilaahay looma kala dhimo Barrow Cabdikariim Faarax Qaari Jiir Maariya xigeenka dhamaantood waxa waliba sii dheer folklore dancing iyo kooxihii kala duwanaaye dhamaan ciyaari ururka waad arkaysaa gabdhihii nisay u soo labisteen calankii iyo waliba astaamo badan oo kale ayay ku labisan yihiin laakiin waxaan jecelahay inaan u yeedho ciyaarta wiilasha dhalinyarada ah ciyaartan oo noqon doonto mid aad looga wada heli doono soo saas ma yahay dabcan waa hagaag balaynu dhaqaaqno waa gadoon bal sirruga wada balaynu sirrugna labadeena ma eegna ma bilowna ma yaga rudeena soo dhawaada sacabkoodana waa inay helaan soo dhawaada
Love
waxaan jecelnahay inaan u yeerno kooxda waa beri ayaanu leenahay iyo weliba barnaamijyadeedii waa beri abwaanintii waa hobladii qaranka farxadda muqdisho ka socota indhihii sugaayo soo wada Very much.
waa tahay aad baad u mahadsantihiin kooxda fanka lordhansiga Soomaaliyeed ee Hobalada Waaberi waxaan jeclaan lahayn markan inaanu u yeedhno kooxda fanaaniinta Hobalada Waaberi iyaguna qaybta ay ka qaadanayaan munaasabada dabaaldega iftiinka iyo waliba nolosha magaalada Muqdisho lagu nool yahay ammaanka iyo nabadda نصري يا قبوني عومعا نور يا افتين انا قصين نبطالي انا كينا نبات نبطالي انا كينا نبات اصلا وقيو ان ابد نقلان نصري يا قبوني عومعا نور يا افتين انا قصين نبطالي أنا كينا نبات نبطالي أنا كينا نبات القوى إلى نبطالي هدي أنا كينا نبات أنا كينا نبات انتوا إلى نبطش هدي أنا كينا نبات أنا كينا نبات القوى إلى نبطالي هدي أنا كينا نبات أنا كينا نبات مطينا جمغنيت أنا ولي أنا كينا نبات مطينا جمغنيت أنا ولي أنا كينا
وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض القوى إنو نبض قلي هدي عرفتينا نبض عرفتينا نبض انتوا إنو نبض شهدي عرفتينا نبض عرفتينا نبض قوى إنو نبض قلي هدي عرفتينا نبض عرفتينا نبض مدينة جمعني قلنا ولي عرفتينا نبض مدينة جمعني قلنا ولي عرفتينا نبض نبض وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض نبض وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا عرفتينا نبض عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض نبض وانا نبض وانا عرفتينا نبض waa habeenimo galabtaanu soo bilowna festivaalkan waxaa ka soo qayb galay wasiirro kala duwan wasiirka amniga wasiirka warfaafinta gobolka banaadir qaybihiisa kala duwan haweenweynaha qaranka Soomaaliyeed oo waliba heer gobol iyo heer qaran labadaba madaxdii warfaafinta oo iyaguna qaybahoodii kala duwanaaya kooxihii waaweynaaye wadanka waa bari iyo waliba kooxda dib u soo celinta ciyaaraha iyo nabadda waa tartan ma aha waa festival ama bandhiga nabadda gobolka waxa uu ka bilaabay oo maanta ka bilowda degmada warta nabadda wuxuuna ku baahi doonaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee dalka 16 degmo ee gobolkana mid ayaa u mari doona festivaalada noocan oo kala ee bandhiga nabadda waa dawladda iyo xukuumadda cusub ee hirgashay iyo waliba qaabka ay wax u soo bandhigtay iyo guulaha degdega ah ee durba la gaaray waxaad arkaysaan inay isku dhex jiraan wasiiradii iyo waliba dadweynihii ay isku dhex jiraan oo ay salaamayaan wada sheekaysanayaan dabcan mar haddii ay is-aamineen bulshadii iyo wasaaradahoodiina nabadii way hana qaaday way sii socotaa waxay tagi doontaa halkaadan berri aad odhan doonto alla maxaan uga qayb geli waayay waa tahay waxaan jecelahay inaan si fiican u sii wada daawano ciyaarta wiilasha dhalinyarada ah sida iskuul barogaya waad arkaysaan iyo ciyaarta xiisaheeda dadka naga daawanaya adduunka dacaladiisa waxaan leenahay muqdisho waa nabad haddii aad maqashay muqdisho ma aha nabad waa nabad xilligaas ayaa ciyaaraha idaha iyo dhaqanka iyo kuwa muusiga intaba iyagoo kala nooca lagu dheelaya ama laga qaadaya ama lagu ciyaaraya intaba yaad u yeeri lahayd markan waa hagaag ciyaaraha ayaan idinku duwayaa goorma idinku dambaysay weli sanqo TV ka baxaysa live u baxaysa meesha ay muqdisho tahay gobolka banaadir ay tahay halkii lagu yiri ay tahay ma weysa qabto way weysa qabtaa way hagaagsantaa way horo madhay wayna horo martay guul bayna gaadhay daawasho haboon وهاجاك ووزيردي با كقيب قليا عيارهن أيها كقيب قليا وين شويجا ووزيرك ورفافنتا
waa wasiirka warfaafinta iyo waxa wada ciyaaraya يا وزير joog أمنك waa wasiirka warfaafinta iyo waxa wada ciyaaraya wasiir sacaadatu wasiirka warfaafinta iyo nin ciyaartooya waa nin ciyaartooya iyo wasiirka waa ciyaaraadii aad u xiisabasan waa wasiirka warfaafinta Mustafa Dhuxulow iyo ciyaartooydii ciyaarta waalada la yiraahdo oo wasiirka badiyay wuu badiyay waa wasiirkii nabad 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 markay ciyaartu Waa laga hagaag. soo tahay Waa- ayaa ciyaaraysa qofka laga badiyo mooye qofka kale ayay gabadhu la ciyaaraysaa ayay la ciyaaraysaa waa ciyaaraysa badan hadda kulay waxa wada ciyaaray wasiirka iyo nin ciyaartooyda kamid ah noo sheeg waa wasiirka amniga isaguna magacaaga noo sheeg ismaaciil cumar adigii wasiirku waad wada ciyaarteen sidee loo kala badiyay markaa marka hadda isaga ka badiyay waa waxyaabaha xajiibka ah ee xiisaha badan waa waxyaabaha xiisaha badan ee aadkii aadka runtii aan uga helnay wasiirka ayaa badiyay waa kan magacaaga ii sheeg ciyaartooy ismaaciil waxaan ka helay adigii wasiirka maanta wada ciyaaraya bal ka waran dareenkaaga nabaddu waa sidii waxyaabaha cajiibka bal ciyaarta habka horta loo ciyaaro gudub iyo maxaad tiri igu soo celi waa maadsantahay bal ii kaadi bal wasiiro dhaqan waa wasiirka wasaaradda warfaafinta isagii baa nin dhaqana macallin biski sacaadatu wasiir hanbaliyo marka hore hanbaliyo bal ii sharax bal wax nooga sharax dadweynaha toos bay wada nooga daawanayaan علينا والله مركا قدب يترسل كذا قاطع قدب كوحوي قعمت صوتك لبان قعنا صار سوى هذا قدب على هذا لبان قعنا سنان سلة سنان ترسل صح 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 أكيد لو مر لبان قعنا سنان قعمت أساسا كلها يعني سفي عن مركا دقيقة ترسل هاي ها سدح مرة غير وراك مركا waa maadsantahay haddaan kula kaftamo heeskii wasaaraddu way heshay wasiirkeedii ay hadda way qaadaysaa alla ilaah waa dhab sacaadatu wasiir aad iyo aad waxaanu bilaabaynaa haddaba wiilka ciyaartayga si weligaa fiican. wasiir ma la ciyaartay ciyaartan oo kale nabad ma aragtay wasiirad sidaa ula dheesho oo kaa badiya nabad ma soo arkin annaga waa markii kuugu horreysad ciyaartan waa markii iigu horreyso markaan ciyaaro waayo oon ciyaar nabad aan habeen dheelo waayo waad mahadsantihiin waa tahay intaa ayaynu ku soo koobaynaa qaybaha ciyaaraha ee loogu talagalay barnaamijka damaashaadka nabadda markana waxaan ku wareejinayaa khudbadaha mas-uuliyiinta sharafta badan ee nagala soo qayb gashay barnaamijka ugu horrayn waxaan jadwalkeenna ku bilaabi doonaa oo furitaan u ah guddoomiyaha CCA hay-adda nabadda iyo weliba horumarka muqdisho waa hay-adda CCA Center for Community Awareness maxamed cajiib ayaan leh ugu horrayn ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga qaranka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada warta nabadda ee maanta ku naashoonayna iyo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo inta kale marti sharaf joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaa farxad noo ah in damaashaadkii aan ku soo bilownay galabta 4 galabnimo haatan oo ay tahay todobadii habeennimo ama hal saac habeennimo aan magaalada Muqdisho oo waayay ugu dambeeyay lagu sheegay in aan nabad ahayn aan ku damaashaadeeno annagoo nabadii iyo horumarkii iyo ciyaarihii iyo hidii dhaqanka ummadda Soomaaliyeed lagu yiqiin dib u soo celinay waxaan leenahay meel walba ee Soomaali joogto magaalada Muqdisho waa nabad hay-adda CCA oo aan madaxda ka ahayne hay-adda wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay magaaladu nabad tahay in haddii aanan dalkeena annaga u dhiiran aanan qofu nabad ka dhigi karin nabaddu gacanteena ku jirtaa caqligeena ku jirtaa jeebkeena ku jirtaa waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waan salaamayaa qaaradaha adduunka meel walba ay ka joogaan anigoo fursaddan qaaliga ka faa'iideysana waxa u sheegaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada inay ka shaqeeyaan nabadda dhalinyarada inay ka shaqeeyaan dib u dhiska dalka dhalinyarada inay ka shaqeeyaan horumarka dalka 23 sano ku soo jirna burbur iyo dhibaato kuwii geystay waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii dalka lagu burburi waxay ahaayeen dhalinyaro maanta dhalinyarada ayaa laga rabaa dalka inay dhisto
waxaan ku faraxsanahay maanta in aan magaalada muqdisho oo la dhihi jiray nabad ma ahayn in 4 galabnimo damaashaadkii ka bilowda uu socdo saacadan oo ku sii dhowda 8 habeenimo waa ku faraxsanahay waxaan uga mahad celinahay adaha amniga gaar ahaan degmada taliyaha degmada warta nabadda gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo dhammaan bulshada degmadan amartida una waxa le waa mahadsantihiin sida sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha la u soo dhaweyseen kogosha aafidiseen hay'adda CCN waxay balan qaadi doontaa iyadoo fursadda qaali ka faa'iideysanayso meel walba ee ummadda Soomaaliyeed joogto inay barnaamijyo sidaan oo kale abaabuli doonto oo ummadda Soomaali loogu baaqaayo nabaddu in ay gacanteena ku jirto in hidihii iyo dhaqankii iyo sharafkii iyo qiimihii oo Soomaaliyeed aad dib u soo celino kuwa maalin walba nagu handadaya ama nagu dhibaateynaya dalkeena inayna nabad ahayn ama hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ama sharafkii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed lahayd nagu handada waxa leenahay ma aqbalin warkaas waxbana kama jiraan ummadda Soomaaliyeedna waa israacday magaalada Muqdisho ayaan joognaa magaaladu waa nabad dalka iyo dadka Soomaaliyeedna anaga iskale dalka anaga leh dadkuna waa anaga gacanteena nabad ku jirtaa ciidamo shisheeyaan waxba noo qaban karin cid kale wax noo qaban karto ma waa in aan dalkeena nabadeena sidii aashala u burburina si lamida waa in aan u dhisnaa waa mahadsantihiin meel walba ummadda Soomaaliyeed joogtan waxa leeyahay hambalyo maanta magaalada Muqdisho waa meel nabad ah soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa wasiirada gudoomiyaha warta nabadda iyo konsalka shacabka warta nabadda ciidamada qalabka sida warfaafinta dhammaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa joogno warta nabadda oo goor dambe ah wasiiradayadii ay dhala joogaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan idinku hambalyeynaa inaanu xilligan laga xafladaysanayo magaalada caasimadda Muqdisho ilaa maanta 12 shir ay isdaba socdeen oo dadka Soomaaliyeed ay sadaalayn kana daaleen wax qabadka iyo Soomaalinimada iyo dawladda marka waxaan leeyahay haddaad dibadda jirtaan dalku waa dalkiina idinkuna idin sugaya haddaad gudaha joogtaanna shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay haddii cadawga waxa arki kara qofka shacabka ciidamadu ma arki karaan ee waxa ogaan kara oo arki kara shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay aad ayaan u hambalyeynaya shacabka warta nabadda oo uu kamid ahay waxaan deganahay warta nabadda waxaan kamid ahay shacabka warta nabadda degan waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto qalbigeena iyo qulubteennaba Allah safeeyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan idinka codsanayaa dalka innaga iska leh dadkiisuna waa innaga wadaladan lahayn dareen ku joog shacabka Soomaaliyeed isbaarada qalbiga ha iska qaadeen kulli nafsatal daaqatal mawt qof kasta waqti buu dhimanayaa adoo raaxaysanaya iyo adoo gaajaysanaya dunida waa laga kaxaynayaa laakiin ha lagu dhiirado in dalka iyo dadkaba maanta ay mas'uuliyiinta qaranku ay soo dhex fadhiisanayaan 6 saaco 4 saaco habeenimo ilaa 2 saac ilaa maanta ay xukuumaddu shaqaynayso iyo golaha wasiiradu waxaanu ku faraxsanahay inaad gobolkii Banaadir wasiiradii shacabkii Soomaaliyeed ururka haweenka qaranka kii gobolka fanaaniintii saxaafadii shacab weynihii Soomaaliyeed dhammaan gacmaha haysaysanno ishii bugtaay ku bikaacsan assalaamu calaykum wasiir ciyaartii horta koob baad ku qaadatay halkaad ku baratay ciyaarta ciyaarta waxaa laga ciyaari jiray markii dalku nabadahay waa fiirsan jirnay xaafad la yiraahdo mijiska ceelgaroon laga ciyaari jiray halkaas ku baratay waa fiirsan jiray ma jirtaa sida caawa u badisay oo kale dhowr jeer oo u badisay caawa igu horeysay waaw waa tahay waxaan ku deenayaa marka erayadii aad ugu tala gashay barnaamijkan munaasabada iftiinka iyo nabadda Muqdisho caawa lagu qabanayo degmada warta nabadda amaasanta bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka amniga qaranka ku-xigeenka gobernatooraha gobolka duqa magaalada General Gafow gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo gudoomiyaasha kale madaxda qaran ee haweenka halkan jooga waxgaradka dhalinyarada Soomaaliyeed caawa dhan halkan joogto runtii oo uga mahad celinaa waqtigeena la qaateen si qaas waxaan uga mahad celinaa hawlada waa bari kaalinta halkan ka muujiyeen iyo waliba dhaqanka iyo ciyaaraha la soo bandhiga caawa inta aan qodbadeeda gelin farxad kasta oo la sameeyo adduunyada waxaa iska jira kulay soo dhaxgal waxaan runtii u tacsiinaa
allah u naxariistee maxamed salaamaan tubic oo ahaa runtii qof weyn oo fanaanimada marka laga reebo Soomaaliya oo ah caana oo icon oo runtii la dhigi kara astaan qaran oo ahay isagay maaragtay eheladiisii oo ka tagay iyo asxaabtiisii iyo dhammaan dadka Soomaalida oo uga tacsiina inta haddii aan uga gudbo caawa runtii aad iyo aad waxay noo tahay sharaf inaan saacadan joogno degmada warta nabadda waxaan ku faraxsanahay inaan ciyaarihii iyo dhaqankii iyo hidihii ummadda Soomaaliyeed aan soo bandhignay waxaan si gaar ah runtii uga mahad celinayaa degmada warta nabadda gudoomiyaha hay'adda CCA iyo wasiirka amniga qaranka oo runtii nagala soo shaqeeyeen CCA barnaamijyo kale hore noo soo qabatan waa jiraan barnaamijyo kale hore noo soo qabtaan waa jiraan barnaamijkan waa ballaari doonaa degmooyinka gobolka markaan ka gudubno dalka ayaan gaarsiin doonaa insha Allah tacaala waxaan rabaa hadalkayga inaan caaw ku dheeraanin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka iyo hidaha leenahay haddii aan soo bandhigno wuxuu qayb ka yahay nabadda dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga nimankan cadawga ee nala dagaalamaya nagama intelligence badno nagama information badno wuxuudu waa dadka ay runtii inay qalqal galiyaan wax yar oo dhibaato ay jecel dadka inay la fiirsadaan waxaan rabaa dadku inay ku dhiiradaan nabadooda inay gacanta ku keensadaan rabaa inay ku dhiiradaan dadku waxaan rabaa dadku inay ku dhiiradaan dhaqankooda iyo hidooda inay soo ceshadaan in lagu dhiirado nabadda in lagu dhiirado loo baahan nabadda kaliya gobolka Banaadir maahane dhammaan dalkane waxa loo baahan dhaqanka dib looga soo celiyo teeda kale deegaamada hadda la xoreynayo waxa loo baahan dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka walaalahooda oo dadka cadawga marnaba aan la soo xasuusan waxa kaliya lagu soo xasuustay inay noqdaan dhibaatada ay dadka ku heejireen iyo gumaadka aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير كورفافينتا قدومي كحين قبل كبنادر قدوميها الدقمة ورديقلي لمان مرتشرفتا كذا كسوق يبقى شيء runtii sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaan dadweynaha reer warka nabadda iyo dadweynaha kale Soomaaliyeed ee ku damaashaadaya barnaamijka bandhiga nabadda ee ah barnaamij runtii aan rabno inuu dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada dalka oo dhan inuu gaaro barnaamijkan dulucdiisu waxay tahay in la faafiyo nabadda in dadweynaha lagu dhiirigeliyo nabadda in dadweynuhu ay lagu dhiirigeliyo laguna baraarujiyo inay nabadda ka qayb qaataan runtii barnaamijkan wuxuu astaan u yahay in dadka Soomaaliyeed ay doonayaan nabad barnaamijkan wuxuu astaan u yahay in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo nabad ah dadka oo dhanna nabadda ay u heeloon yihiin una ooman yihiin dhamaanteen nabadda ayaan u damaashaadaynaa dhamaanteen nabadda ayaan aan baraarujinaynaa barnaamijyada noocan oo kale insha Allah tacaala waxay noqon doonaan barnaamijyo taxana ah dhammaan xukuumadda iyo dawladda oo dhan ay ka qayb qaadan doonaan waxaan leenahay kuwa cadawga ah ee nabadda diidan in maaragtay ay ka naxaan nabadda in dadweynaha Soomaaliyeed ay cabsidii ka guureen in dadweynaha Soomaaliyeed ay jajoobkii ka guureen in dadweynaha Soomaaliyeed ee nabadii iyo caawdi nabadda ay u baxeen aysan marna aqbalaynin inay cabsadaan aysan marna aqbalaynin in gacan ku gabad ay noqdaan inay dhiiradaan inay diyaar u yihiin ayaan leenahay sidaad ogtihiin waxaa bilowday howlgalladii nimanka nabadiidka looga xoreyn lahaa ama looga xoreynayo dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka marka annagoo goboladii iyo degmooyinka dalka ee gacmahooda ku sii harsanaa ka xoreynayno ma aqbalayno mana doonayno inay magaalada Muqdisho ku dhuumaaleystaan ma aqbalayno mana doonayno inay magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ay wax ku yeeleeyaan mana dhammaan shacab iyo dadweyne iyo dawlad annagoo is wada gaashanayna waxaan leenahay waa diidnay in shacabka Soomaaliyeed dhibaatay waa diidnay in dadweynaha Soomaaliyeed dhibaatay waa diidnay in magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale Soomaaliya lagu dhuumaaleysto lagu soo qariyo argagixis caalami ah si ay dadweynaha Soomaaliya dadka Soomaaliyeed u waxyeeleeyaan waa diidnay shacabka Soomaaliya waa diiday dadweynaha Soomaaliya waa diiday dawladda Soomaaliya waa diiday dhamaanteena annagoo midaysan waxaan leenahay arinta ayada ah ma suuragelayso waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee la marin habaabiyay ee ka tirsan kooxahaas nabadiidka ah inay u soo laabtaan shacabkooda inay u soo laabtaan dalkooda inay u soo laabtaan horumarka dalkooda iyo ka qayb qaadashada nabadda iyo horumarka dalkooda inay u soo laabtaan dawladda Soomaaliyeed waxay u haatinaysaa gacan nabadeed ciidamada Soomaaliyeed waxay u haatinayaan gacan nabadeed waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda ka mid noqdaan inay ka waantoobaan falalka xun oo lagu naafeynayo laguna dhaawacayo dadka Soomaaliyeed lagu naafeynayo laguna dhaawacayo qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed inay dadkooda ka mid noqdaan ayaan ugu baaqaynaa waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo
fanaankii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee runtii qaybta weyn ka soo qaatay dalkan dib u dhiskiisa dadka Soomaaliyeed baraarujintiisa dadka Soomaaliyeed horumarkiisa Maxamed Saleebaan oo ku geeriyooday dalka Jarmalka oo runtii ahaa fanaan aad iyo aad dadka Soomaaliyeed u wada yaqaanaan qayb weyn ka soo qaatay dadka Soomaaliyeed baraarujintooda iyo ku dhiirigelintooda horumarka dalkooda iyo aayahooda aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynaa dadweynaha warta nabadda waxaan si gaar ugu hambalyeeynaa gudoomiyaha degmada warta nabadda oo runtii ah gabadha keli ah ee gudoomiyaasha gobolka Banaadir degmooyinkiisa uga jirta ahna xidig ka muuqata degmooyinka kale aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa ugu dhiirigelinayaa waxay runtii astaan u tahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay noqon karaan hogaamiyaal inay noqon karaan astaan u tahay inay gabdhaha Soomaaliyeed haddii mas'uuliyado qaran loo dhiibo ay ka muuqan karaan kana muuqan karaan ragga ay astaan u tahay iyadoo ah gabadha keli ah ee ku jirta gudoomiyaasha gobolka Banaadir astaanteeda iyo howlaheeda iyo shaqadeeda waa muuqdaan waxaan leenahay guuleyso waana kula jirnaa waana ku baraarujinaynaa waana ku garab galaynaa heeliyo hoona waa kula taaganahay aad iyo aad u mahadsantahay Jawaahir aad u mahadsantahay hambaliyo degmada warta nabadda iyo gudoomiyaha degmada Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawo walaal magacaaga waa Nasiib Daarsaan haye Nasiib waa nasiib wanaagsan tahay caawa halkan xafladan iyo ka soo qaybgalkaaga nasiibkaaga hore u socdo haye dareenkaaga wallaahi ma caawa aad ayuu u weyn yahay waxaan ahay teetal ka mid ah ururka haweenka degmada warta nabadda gudoomiyaha ururka haweenka degmada warta nabadda waana ku faraxsanahay amnigana aad ayaan u xoojinaa hadaan haweenka Soomaaliyeed sida wasiirka sheegay waana ku faraxsanahay wasiirka waana soo dhaweynaynaa mar koowaad mar labaadba aad iyo aad soo dhaweyn lamid ah inan kale ayaa iyadna joogtaa waxaan filayaa waa reer Wardhiig leeyahay magacaaga walaal Farxiya Cabdullaahi Nuuraani war Farxiya warta nabadda waxaad ka mid tahay malaynayaa ashqaasta degan dareenkaaga aad u wanaagsan yahay waa ku faraxsanahay xafladda wanaagsan maanta ugu imaanay farxadan iyo reereyntan aad iyo aad u soo dhaweynaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay hambaliyo Muna Cumar Xasan haye intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena munaasabadda dabaaldega nabadda inta aynu barnaamij kale ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa nabadgelyo